السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال يرادا آمنة أويس وحان فيديو دوبا دولة شرفت بدن مدحوينه محمد عبد الله فرماجة رئيس وزراء كل مدحدي شعبك الصومالي فيديو أدرا وحان قبر الصومالي وكنا الوطن كباكستان قاصة عاصمة إسلام آباد وحان هاي قبر كسو بورستي نين باكستان وطن السعودية العربية لبض بش التضباط كودي دي waxaan u dhalay 8 ciyaal 4 iga dhintay 4 aan haysto 2017 wadankan keenay sharcigii iyo deganaashada aan Sacuudi ka haystin oo iga kansalay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar dama waraysigeeda aan bixin hadii Ilaahay ka raal noqon laakiin hadartan waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaataysanahay wadanka markuu keenay sharci wuu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi waxaan u cabday safaaradan waxay dhaheen waxaan ka qaban karnaa malaha ninkan viisada wuu diiday asaga ka takaatay waxaan rabaa in dawladda ii istaagto nin shakhsi intuu isoo wado wadanka ay keeno sidoo rabo ila dhaqmo dhibaato badan ii geysto haddana dhankii sharciga ii diido deganaashadeedii iga kansalay iqaamadeedii iga kansalay halkan si dhibaato badan oo ii geysto hadartan waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto viisada waa iga dhacday viisa ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shakhsi ah maamo ah in aan dawlad la xisaabtamo ama aan istaag qof shakhsi ah ahay ma istaag karin dawlad horteed ma dhigi karin maxaa sidaan igu qabatay waxaan rabaa dawladda sharafta badan inay ii istaagto ninkan shakhsiga sidoo rabo inuu dhaqmaa wadankiisa dhexdiisa in la iga qabto viisadeeda la iga qaado xaqayga xuquuqayga la iga dhiciyo muwaadin Soomaaliya ahay in shakhsi soo wato wadanka ay keen asigoon madaxweyne ah sidoo rabo ii galo ayaan daro waxaan rabaa in la ii istaago madaxdeeda inay ii istaagto dhibaatadaasaan qabaa tan ugu weyn ay tahay sharciga xaqiisa in la iga caawiyo xaqayga la iga qaado ninkan dhibaatada iga geystay in lala xisaabtamo albaab walba ii garaaco dawladda Pakistan lala fadhiisto xaqayga la iga dhiciyo taasaan u baahanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.